Bayanka xisbiga mucaaridka wadani mudane Cabdirashiid Xasan Mataan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Boorama ayaa waxa uu kaga hadlay shirkan jaraa'id qodobo dhowr ah oo ugu horeeyaan wadahadalkii Somaliland iyo Soomaaliya uga qabsamay dalka Turkiga ay ku tilmaamay in ay shirar qarsoodi la yeeshaan xubno ka tirsan dawladda Soomaaliya wasiiradii ka socday dawladda Somaliland waa sida uu hadalka u dhigay marka ugu horeysa waxaan shacabka Somaliland u sheegaynaa inuu socdo shir aanay dawladdu shaacinin iyadoo la ogaa inay joogsadeen wadahadaladii halkii ugu dambeysana ay ahayd inaan la hor fadhiisanaynin dad Somaliland ka soo jeeda oo ay Soomaaliya soo dirto shirka waxa ku ballamay wufuud ay qabanqaabiyeen labada wasaaradood ama labada dawladood Soomaaliya iyo Somaliland oo ay nooga qayb galeen xubno reer Somaliland ah oo Somaliland matalayay dhinaca kalena ay soo direen xubno ka soo jeeda Somaliland shirkaasina halka uu wali ka socdo waa shir aanu socon sidii loogu talagalay ummadana ma aha masiirkooda in mar walba dhuumasho lagu galo waxaan ogeynaa shirar qarsoodi loo tago waxaanu kaloo ognahay in wasiiro ay dabada ka hagayaan deetay kharijiga iyo deetay wasiirkii madaxtooyada ayaguna joogaan meesha waxaan leenahay masiirka Somaliland shacabka Somaliland buu ka go'aa talada wadahadaladu ha noqoto talo loo dhan yahay oo xisaabta qaranku u dhan tahay oo si wada jir loo galo wax qarsoodi ah oo ummadan marba shir qarsoodi loogu qabto waan la ogeynaa loo baahnaa dawladdan waxaanu ka sugaynaa inay faahfaahin ka bixiso shirkaas iyo waxa maanta dib loogu hor fadhiistay xubno Somaliland ka soo jeeda oo Soomaaliya matalaya haddii aanu gudbo gesta kalena Cabdirashiid Xasan Mataan oo hadalkiisii wata ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda Somaliland iclaamisay maalinta ay dib u bilaami doonto diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka ee Somaliland oo uu ku tilmaamay bisha Abriil inay si toos ah uga bilaami doonto diiwaangelinta codbixiyaasha ee Somaliland way diiwaangelinta insha Allah taala sida iclaamiyeen commissionku waxay dib u bilaamaysaa 3 Abriil oo ay ka bilaami doonto gobolka Boorama qaybihi haray waan ku faraxsanahay dadku waa u diyaar commissionku waa u diyaar ilaahay idinkiina waxaan rajaynaynaa in si qurux badan oo nabad ay noogu dhacdo sidii kuwii hore noogu soo dhaceen goboladii bariga dadweynihii aad bay ugu diyaar garoobeen doorashada diiwaangelinta xukuumadda waxa laga rabaa sida ay u soo iclaamiyeen ama ay u soo gudbiyeen commissionku goobaha inay xukuumaddu ugu diyaar garowdo xuquuqda muwaadiniintu u leeyihiin diiwaangelinta in goobihii loo diyaariyo dadku waa u diyaar ma rabaan in isxambaar dambe ka dhaco bari ma rabaan in codkoodu khasaaro waxay rabaan codkoodu inuu noqdo codka Somaliland masiirkeeda kala goynaya isbedelada ay doonayaan mar walba ay kaga qayb qaadan doonaan waan hambalyeynaa gobolka Sool iyo Buuhoodle iyo Sanaag bari intuba sida ay ugu diyaar garoobeen ay diyaar ugu yihiin inay galaan diiwaangelinta waana ku barbartaaganahay xukuumaddu yaanay ka cagajiidin in diiwaangelintu ka dhacdo gesta kalena afayeenka ayaa waxa uu ka dhawaajiyay abaarihii baahsanaa ee ka jiray gobolada galbeedka Somaliland inay haatan ugu daran yihiin gobolada bariga Somaliland roobabkii dib uga dhaceen bariga marka laga bilaabo go'da ilaa bari looga rogo ilaa Taleex wax mucaawino ah iyo wax gurmad oo gaarina aanu jirin ilaa hadda xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa mucaawanadii dadkan loogu talagalay ee soo gaadhay hala gaarsiiyo hana loo gurmado shacabka Somaliland meel ay joogaanba waxaan ugu baaqaynaa inay dadkooda soo caawiyaan gaar ahaan gobolada bariga oo maanta ay soo cusboonaatay abaartii ilaahayna waxaan baryaynaa inuu Ilaahay naga soo jebiyo guud ahaan abaarta oo uu inooga dhigo dhulkeena dhul nabada oo hoggaan khayr qaba oo ummadda nabad u horseeda iyo barwaaqo iyo nidaam wanaagsan iyo kala dambeyn naxariista Ilaahayna wax lagu helo cadaaladna kan Ilaahay inoogu dhiibo Wasamiixa Maxamed Cilmi TV-ga caalamiga Star magaalada Boorama.